fatahaadaha ka burqaday webiga Shabeelle ayaa cagta mariyay dalagyo kala duwan oo ka soo go'i lahayd dhulbeereed aad u baaxad weyn iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahaday oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ahaa Shiidlabari, Xudar Ciise, Buurfuule iyo Kulmisyarow. Shacab ku nool tuulooyinkaas oo aan haysan hoy iyo cunno iyo mari kaneeco ayaa saameyn ku yeeshay fatahaadaha uu yeeshay webiga Shabeelle. cilmi wax siina male nimanka beelka shaqeeya male waa la macaadi waxaan rabnaa inoo gargaar saanaa jeedin waa ilma saanaa haq banu haynaa bas guriyihii baa si darnay baarihi sidoo kale inoo soo batay guriyaha noo soo galeen wax sanaagana xataa male gooda xataa biyana raaceen saasayna dhaxdadaadu haayaan gudoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax ayaa dhinaciisa ka warbixiyay fatahaadaha uu ku sameeyay tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. inta aan ka gaari hadal maharin hadal gudoomiyaha oo u dhameeyay iyo gudoomiyaha tuulada waxaan ku daraa laga soo bilaabo wadada ilaa eji webigu labada dhinac u kala rogmadano meel hartay oo degmada Mahaday u hartay oo dhulbeereeda oo nabad gashan sidaas sida Buurfuule hadda aan ku aragno ayay meesha ugu waqooyeen meesha ugu koonfureysa sidaas ay u taala bil xaqiiq dayrkana siday hadda waa dadkuna waa beeraley oo beero qodata waay beeray ku siday u noolahayn horta Allah og laakiin